iyo deegaanka Garasbaaley dhanka marka ee koonfur hadii la yiraahdo number 50 iyo Awdheegle marka degmadu intaas xuduud leedahay baaxadeed intaas la eg tahay marka waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa inay iska ilaaliyaan dhulboobka waayidan socda haday tahay mid gudaha degmada Afgooye ah iyo mid gaararkeeda baahba because wax dagaalada ugu tirada badan waxay ka yimaadaan dhulboobyada marka nin kastoo bini'aadina hadduu dhinto wuxuu leeyahay 2 mitir marka dhul badan oo intaan iska oodanno oo aan wax ku dilno oo waa laga fiican yahay marka xagga dawladda la yiraahdo qofka ugu weyn baa la siiyaa maxaan ku yiraahdaa dhulka ugu badan ee binti la siiyaa marka dhulboobkan tirada badan way ma garan karayno waxa laga wado inaan dhulboob hor la aan samayno maangal ma ahane war aqliga aan dib ugu noqonno Soomaaliyay dhul dawladeed ma dhumo ninkii moodayo dhul dawladeed 30 sanaan deganay 5 sanaan deganay 20 sanaan deganay 50 sanaan deganay inuu ku yeelanayo ma lagu yeelanayo dhul dawladeed ma dhumo waa hanti qaranna ma dhunto marka hanti qaran waxay ku noqonaysaa qarankeedii ku noqonaysaa si looga waantoobo oo shakhsi kasta oo damaciya danta guud damaciya war danta guud shakhsi ma laha Soomaali oo dhamaa kula leh adoo shakhsi ha damacinin waxaan leeyahay adoo shakhsi ha damacinin ummadda Soomaaliyeed waxay adoo shakhsi ha damacinin taasi waxay la mid tahay dalka Soomaaliya oo dhan gadatay la mid tahay dalka Soomaaliya oo dhan gadatay waxay la mid tahay bulshooyinka Soomaaliyeed waxay ka dhigeen kaliya isxajiso arrinka asiga ah dawladdu waxa ay danta guud u ilaalinaysaa waa in oo danta guud la wada leeyahay danta guud oo la wada lahaay bay dawladdu ilaaliye ka tahay wax kala kama ah ma qaadan karto shakhsi ma la siinayo dawladdu danta guud ilaaliye ka tahay marka danta guud cidda sida gaarka ah dama uga jiray waxaan ku leenahay iimaanka Allah ku geliyo ka waantow haddaad ka waantoobi weysana cawaaqib xumaad kala kulli doontaa iyo sharaf dhac gudoomiyaha degmada Afgooye Ibraahim Cumar Qaasim ayaa sheegay in dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ay tallaabo sharci la ka qaad doonto dadka ku jira guryaha sharci darrada ay dawladdu leedahay iyo sidoo kale kuwa guryaha sharci darrada ka dhisay degmada Afgooye wuxuuna madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo wasaaradda arrimaha gudaha u ka codsaday inay faragelin ku sameeyaan isla markaana dadkaasi tallaabo sharci laga qaado kuwaas oo ku tilmaamay in ay dhulboob wadaan ama ay xalaaleystaan waxaan leenahay maamulka degmada Afgooye hadaan nahay raalli ma ka noqonayno weligeena ma ka ahaa doono annaga waxaan mas'uul u nahay dawladnimada waxaan diyaar u nahay dawladnimada marna raalli ma ka noqonayno sharci darra takrifal dhuleed ama dhan walbo ama xawlo dawladeed waxaan rabnaa in haddaba dadka oo maanta malaynayo in meel walba oo la qaatay oo maxay dhahayaan inay u xalaalowday waxaan idin leenahay wallahi midin xalaaloobin dhul dawladeed waa dhul dawladeed maalin waa ogtihiin qof walba maanta meel dawlado badan ay maxay dhahayaan oo lagala wareegay oo gacmo kala galay oo shacab meel badan loo adeegsaday oo maanta laakiin la soo noqay way dhacday tanna ha dhawaato ha dheeraato maxay dhahayaan way soo laaban doontaa gacanta dawladday ku soo laabanaysaa marka waxaan leenahay dadka rajaynayo hadda meelaha hor leh inay degmada maxay dhahayaan ay ka sameeyaan waxaan maanta ugu digayaa inaysan suurageli doonin Afgooye hal jiingad 1 mitir ah in laga kawsado ama maxay dhahayaan laga dhisto annagoo u taagan degmada halkan ayaa maxay dhahayaan waxaan warqad maanta ugu gudbiyay dhammaan laamaha amniga ee degmada Afgooye taliyaha saldhiga taliyaha daraawiisha kulli wareegto ayaan soo saarnay maamulka degmada hadaan nahay oo farayso in ay ka hortagaan dadka sharci darrada degmada maxay dhahayaan oo ku soo wajahay waxaan ka rajaynaa laamaha amniga ee degmada Afgooye inay hawshaasi har iyo habeen heegan u yihiin ayna difaaci doonaan dalkooda deegaankooda dadka xumaanta kula soo duuleen marna ma iibsanayno sharafteena waxaan diyaar u nahay har iyo habeen inaan u taagnaano aan difaacno
waxaan halkan kale aan kasii gaarsiinayaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladaha hoose waxaan rabnaa in dhibaatooyinka ee dadka dhulboobka ah oo usoo diyaar garoobay inay maxay dhahayaan musuqmaasuq badan ee laablakac ay sameeyaan inay faragelin kusoo sameeyaan madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen waxaan leenahay madaxweyne in dadkani maxay dhahayaan sharci darrada inay dhulka ku baneystaan amaba ku xalaaleystaan doonayo ee joogo degmada iyo meel walba Soomaaliya maxay dhahayaan waxaan rabnaa in faragelin mas'uuliyiinteena naga sareyso inay ku soo yeeshaan maxay dhahayaan tallaabo sharcina lagala qaado